magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil waxa maanta ka taagan baacsiga ciidamada ee shaqaalihii xamaalatada dekada Berbera muuqaalkan ayaana muujinaya gaari xaajiyada oo ciidamadu wataan oo dariiqada eriyanaysa shaqaalihii dekada Berbera kadib hoos u dhicii ku yimi badeecadihii ka soo degi jiray dekada magaalada Berbera shirkadda DP World ayaa qorsheynaysa inay dhinto tirada shaqaalaha ka xamaalata dekada Berbera shaqaalaha oo tiradoodu ahayd 1000 qof ayay noloshoodu ku tiirsanayd xamaalka dekada Berbera saaka ayaana amar lagu siiyay inaanay soo geli karin dekada iyadoo markii dambena loo adeegsaday ciidamada booliska oo toos rasaas ula dhacaya shaqaalaha waxaanu muuqaalkan oo si qarsoodiya looga duubay muujinayaa ciidamadii booliska oo dariiq ah magaalada eriyanaya shaqaalihii dekada ee noloshooda ku tiirsanayd ma jirto wax qorshe ah oo aan xabad iyo xadhig ahayn oo xukuumadda xilligeedu dhammaaday ka leedahay dulmiga iyo tacadiyada maalinlaha ee ka dhaca dekada magaalada Berbera ee geysato shirkadaasi iyo ciidamada booliska oo ay u adeegsanayso